darro weeye adoo kitaabka ilaahay dhigaya oo ummadda u meerinaya oo cilmiga noocaasa ilaahay ku siiyey darajo noocaasa haysta inaad tiraa dugsi waa meel lagu gacan galay waa meel lagu abaarsado waxna laguma hayo waa meel aan waxba ka soo soconin ama se adoo waxa weeye mu'adin ah oo ummadda u addimaya ee magaca alle tawxiidka ku dhawaaqaya mar kastaba in lagu yidhaa waxa codkaagu meeshaan waxba kuma haydide codkaagu waa gadmaya nin waa macaan yahaye maad fanka isaga biirtid illee qaar badan noocaasaa jira ama se qaar macallimiin ah anaaba garanayaba qur'aan dhigi jiray oo kitaabka ilaahay ummadda bari jiray laakiin markii dambe yidhi meesha waa ku abaarsaday oo cid waxay siidaan waayey marka ilmaha biliga sugaya isbaarooyin tegey waa kuwa ilaahay jalla wacala tilmaamo weeye markuu rabbi ka warramayey ninkii waxa weeye ka mid ah reer banu israa'iil watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin midka ilahay jalla wacala yidhi nebi alla uga warran oo waxau ku array korkooda midkii aayaadkeenna aan siino isaga siibtay aayaadkeenni isaga tegey oo uu shayddaanku raacay markaas markuu aayaadkii rabbi ka tegey shayddaanku raaco ka mid noqdo kuwa dhumay marka qofku intuu diinta rabbi ku dhex jiro qiimo weyna u leeyahay sharaf iyo waxa weeye dhaqaalo iyo intaba waa helayaa laakiin waxaa laga yaabaa xoogaa maalmaha yar ee lagu imtixaanayo inaa istira balbaasho wax ma lahan marka haddaad macallima u istiraado meeshaa waa lagu abaarsaday ee aad tira isbara wax laga helayaa hadda waxaad ogaataa godkii naartaad waxa u socotaa ogow markaas waxa kuu dilaacaya waa godkaad ku halaagsami lahayd maxaa yidhi adoo ummadda ugu qiimo sarreeya oo ummadda ugu sharaf badan inaad dugsi dhaliisho tira waxba laguma hayo oo meel balaayo haye waana meesha ugu qiimo sarrayda taasna inaan macallimiinu adinka idu duraya ma ahan laakiin waxaan rabaa in adinku dugsiga adinka qiimo u yeeli kara dugsiga maanta meesha uu joogo idinka ka dhaqaajin kara luuqyada laga furaya iyo meelaha la geynaya iyo intaad isku waxa tagtaan meelo fiican ka furtaan markaasna ummadda waxa weeyaan iyada ayaa adinka qur-aanku u yeelaya marka isko in laydinka hormarayo waxaad u leedahay naftigiinnu waxa weye asbaab maxaa yeelay idinka marka hore isliiday qur-aanku waxa weeyaan waa waxa ummadda ugu sarreeya waxa u qiimo ugu sarreeya qiimo la raadiyo wax qur-aan ka sarreeya ma lahan haye midka dhigana waa midka ummadda ugu sarreeya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa sidaa yidhi nabiga sal alla alay wasalam waxa inkugu khayr badan midka qur-aanka barta ummadda sii baray haye marka waxaa keenaya in iskool laydinka sara marayo laftigiinnu khayr baa ku leedihiin maxaa yeele marka lagu weydiiye waxaad odhan anigu wax weyn ma hayo macallin qur-aan keliyaan ahay wax weyn ma hayo haye soo sidaa ma dhacdo waxaad haydaa waa waxa ummadda ugu sarreeya adigu waxba haliidin maxaa yeelay xagga alla qiimo weyn oo ka leeyahay bini aadamka waa laga yaabaa xooga inay si u arkaan oo midka isbara jooga wax dhiibaya la yidhaa ninkaas waa nin fiican dhaqaalo dhiibaa laakiin adiga waxa weeyaan lagu liido marka waxa weeye macallimiinow dugsiyada qur'aanka qiimo u yeela adigu qiimo u yeela ee alla agtiisa qiimo weyn oo ka leeyahay